wayaha kamida waraabe iyo wanbaa isweydaarsaday su'aal wankiibaa yidhi waryaa adduunkii waasacyo walaalowday afriko waswaaskii imahayo wanaag baan ku wadacay warkuna waa kooban yahay wadaynimaka ma rabo waddankaana iskale aan kala weydaaranne waraabow maalin wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa ugu fiican wax magaranaysa waxa weeye la isugu yimaado waxa weeye waa qowlka Alle iyo waxa weeye meel in laga xusayo marka insha Allah taala waxaan filayaa inaynu ka soo qaadan doono sunnaheena oo aynu ku furan doono aayado Qur'aan Kariimka madasha maanta la isugu nimid waxaan inoo akhrin doono walaalkeen Salmaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. إلهي هنقوم بآيات القرآن الكريم كان waxaan filayaa ay ka damqadeen macnaha dhacdooyinkii bariyo u dambeeyay dhacay oo aan rabno inaan maanta halkan uga wada hadalno mahadnaqa ilaahay weynaa ka sokow waxaan rabaa inaan u mahadnaqo sidoo kale odayaashan horay fadhiya iyo inta kale oo sidoo kale xagga hore fadhida oo ayaguna waqtigoodii ayagoo dad macnaha waaweyna soo siiyey dad fara badan ayaa jira shaqooyinkoodii maanta ayaguna kansalay ayagana waan u mahad celinaynaa. intaa kadib waxaan rabaa ujeedadii iyo ahdaaftii aan ka lahayn kulankan inaan guda galno. marka hore waxaan rabaa in aan laba arrimood isu sii sheegno. tan hore waxa weeyaan kulanka iyagu maanta ujeedooyinkiisu waxa weeye 3 qodob oo kooban. qodobka ugu horeeya waxaan halkan tacsiir rabnaa inaan uga dirno insha Allah dadkii ehelada iyo qaraabada ahaa iyo muslimiinta meel walba ay joogeen ku dhibaatoobay dhibaatooyinkii maalmihii dhaweyd ka dhacay gobollo ka mid ah Soomaaliya oo aan ka xusi karno deegaamada gobolka Hiiraan hoos yimaado tuulooyinka Kabxanley iyo Deefo sidoo kale tactaradii iyo tacadigii ka dhacay number 50 oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo si la mid ah dhibaatooyinkii ayaguna ka dhacay deegaanka gobolada Shabeellaha Dhexe tuulooyin Jowhar iyo agaarkeeda ah oo aad ogtihiin in ayagana la gubay. waxaa macnaha marka hore tacsidaas aan u diraynaa dadkaas ehelada ah oo aan u rajeynayno in Ilaahay maalintan aan ahayn uu siiyo dulmigii lagula kacay bedelkeeda insha Allah tacaala. tan kale waxaan rabnaa inaan sidoo kale aan halkan uga dirno baaqiyo dhowr ah oo isugu jira marka hore baaq nabadeed oo loo dirayo deegaamadii colaadaas ee ka dhacday ilihii u dambeeyay oo ay jaaliyadda waddankan degan ee Finland ee direed ama qowmiyadda direed ee waddankan Finland iyo bulshada jecel nabadda ee reer Finland ay dhammaan halkan uga dirayaan in dadka walaalaha ah oo muslimiinta ah ay joojiyaan colaadda iyo xabadda ay macnaha ay dhex martay oo ay si degdeg ah arrinkaasi u istaagtay. waxaa kale oo halkan baaq isaguna weyn uga diri doonaa dowladda Soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo aan ognahay in dhibaatadii maalintii dhaweyd dhacday ay ayagu yihiin dadka mas'uuliyadeeda 100% qaaday. sababta aan u leenahay waxaa ka hadli doona odayaasha deergaratada aqoon-yahanada maanta halkan isugu timid wax qarsoon ma aha ciidan dowladeed oo direyskii dowladda iyo hubkii iyo saaradii dowladda wata ayaa dad shacab ah oo ay ahayd inay difaacaan oo nabadgelyadooda sugaan ayay ku duuleen oo ay gubeen deegaamadii ay lahaayeen ayagoo aan u aaba yeelin maati caruur waayeel oday habar intaba. dadka noocaasa dadkii markaa ka dambeeyay
oo ahayd dowladda muqdisho ayaan leenahay anagu maanta wixii ka dambeeyey in aysan noqonayn dowlad ay dadka halkan fadhiya iyo inta kale oo ehelada iyo qaraabadooda ah ay u arkaan inay tahay dowlad. waxaan halkan rabaa marka anigoo ku hadlaya magaca beelweynta direed ee waddanka Finland iyo bulshada nabadda jecel in sida aad ogtihiin dadka halkan fadhiya oo qowmiyad ah oo magaca ay sitaan la fil yiri marka la leeyahay ujeedadu tahay inay yihiin dad la fila ama ku daa cawska macnaheedu ay tahay waqtigii ay yimaadeen waddankan iyo deegaamada inaysan ahayn mid halkan ku taal. hadday noqon lahayd xagga hoggaanka siyaasadda xadaaradda kale waxaan ognahay in beelweynta direed ay u ahaayeen nasab iyo ehel inay mar walbaba ahaadaan kuwo iyagu hoggaanka iyo halgamadii aan wada garanaynay ee waddanka looga saaray colaadihii gumaystihii hadday noqon lahayd boqortooyooyin iyo mas-uuliyad gobolkan iyo mandaqada geeska africa oo dhan ku caanbaxay. intaas kadibna ay ehel u ahaayeen fidinta diintan islaamka ee saliimka ah ee deegaankan geeska africa oo dhan soo gaartay oo culimada ugu waaweyn iyo dadkii fiqiyada ahaa ee diintan iyo nasabka u ahaa ay ahaayeen dad ku abtirsada beesha halkan fadhida. intaa kadib waxaad wada ogtihiin sidoo kale in dhammaan beeshan ay soo taageertay hoggaan walba oo soo maray waddanka Soomaaliya marka laga hadlayo koonfurta Soomaaliya dowladihii ka dhashay oo dhan ay ka ahaayeen mar walbaaba kuwa iyagu taageera oo aan marna mucaaradnimo iyo dagaal iyo xabad midna kala hor imaan iyadoo ay jirto in mar walbaba sadkoodii uu ahaa mid ay ku sheegaan halkaas oo aan la siin jirin. dadku waxa aysan fahansaneyn marka beesha intaa tiro leeg oo geeska africa iyo muqadaqadan oo dhan degan in ay ka qayb qaadan weydo oo aan aragnay sida looga qaato sadkooda mar walbaba markii laga hadlayo dowladda Soomaaliya ee koonfurta. waxaan ula jeedaa oo ujeedada hadalku yahay anigoo ku hadlaya magaca deegaankan iyo dadkan degan Finland ee beesha ku abtirsada inaysan taasi micnaheedu ahayn inay yihiin dad aan garanayn mas-uuliyadda, inaysan ahayn dad aan garanayn qadiyadda ay leedahay dowladnimo, inaysan ahayn dad aan noqon karin xilkas iyo hoggaan ee ahayd in ay u turayeen mar walbaba dadka maatida ah Soomaaliyeed colaadu soo duleysatay haddii ay u heli karaan beelaha kale oo Soomaaliyeed dowlad cadaalad oo hoggaamisa ay ayagu markaa u tanaasuleen ayaga. taa beddelkeedii maanta waxaan u fadhinaa inaan ka tacsiyeynayno in loola yimid duulaan dagaal qaawan oo ay ku soo qaadeen kuwii looga tanaasulay inay ummaddan hoggaamiyaan muddo intaa la egna ay sugaysay bulshadan muslimiinta iyo Soomaalida ah ee ku afirsata beeshan direed. haddaba waxaan rabaa in aan sidoo kale ka hadalno hoggaanka laga hadlayo beeshan maaha beel ku xoog siibatay inay is urursato, inay isgaashaan guursato, inay raadiso correlation iyo dad ay la duulaan tagto oo mar walbaaba waxaad ogtihiin tusaalayaal cadcad oo aad arki kartaan inaysan ahayn dad ehel u ah is urursi iyo duulaan tegid. haddaan soo qaadano koonfurta Soomaaliya dagaaladii ahliga oo ka dhacay dadkii ugu soo horreeyey oo hadda muqdisho kale colaadii daba dheereed haliyey nin dareed buu ahaa ninkii ka dulqaaday dulmigii iyo jaafadii kor saarneyd generaal cabdikariim yuusuf daga badan oo aad wada garanaysaan wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed oo la dagaalamay dadkii halkaasi dhibaato iyo colaadada ka waday kadibna waxay noqotay in deegaankii dadkii uu ka dhashay inta isagiina shaqada laga eriyo ayagiina la gubo oo la baabi'iyo. waxaad ogtihiin in ciidan dhan oo amisom oo dowladda Djibouti ay leedahay ay waddanka joogaan waxa ay ka howlgalaan deegaankaasi ay joogaan uma aysan iman inay ka shaqeeyaan qadiyad direed ayagoo aan ognahay beel ahaan waa dad Soomaaliyeed jamhuuriyad ha ahaadaan laakiin dad bay ku abtirsadaan. dadka ay ku abtirsadaan ayaa waxaa dhacday in ciidamadii ay tababareen iyo dadkii ay siiyeen hubka ee deegaanka ahaa ayagoo arkayay inay yihiin ciidan qaran ay si toosa inta u baxeen ay u baabi'iyeen una gubeen deegaankii dadkii deganaa oo ahaa dad ayuu ku abtirsaday. Soomaalidu waxay in badan ka hadashay Ismaaciil Cumar Gelle inuu yahay nin qabiiliya kan weeye dir buu dadka ku akhriyaa. taa waxay markhaati u noqonaysaa in aysan dowladda Djibouti oo ah jamhuuriyad Soomaaliyeed ka sokowna ah dhalasho ahaan dad dir ah inuusan marnaba hadafkiisu ahayn inuu empowerment ku sameeyo dadka la yiraahdo dir ee degan Soomaaliya ee uu raadinayo qadiyad ka weyn oo ah in Soomaali weyn
gacmaha isqabsato ay waxaan noqoto oo aan ognahay in badan oo maanta duulaankaas qaawan kusoo qaaday Soomaaliya gaar ahaan dadkan beeshan deegaanada ay leedahay ay sitaan baasaboorro Djiboutiyaan oo wada ognahay ganacsatadooda hadday noqon lahayd siyaasiyiintooda hadday noqon lahayd aqoon-yahanadooda hadday noqon lahayd ujeedadana wax kale ma ahayn dowladda Djibouti waxay u fududeynaysaa accessna u samaysay in ay socon karaan hantidooda aan la dhicin ayaguna aysan noqon dad lagu xabiso koonfurta Soomaaliya marka ma noqonayso mana u dul qaadanayso beeshan wixii maanta ka dambeeyay in dulmigaani intuu sii socdo uu noqdo mid lagu baabi'iyo lagu gumaado dadka ehelka u ah deegaamadan ay hadda ku duuleen dadkan wax magaratada ah intaa kadib waxaan rabaa inaan hadalka ku wareejino dad iga aqoon badan dhalasho ahaanna runtii aada iyo aada u kala yaqaana beeshan oo ila fadhiya halkan aanan rabo in ay hadda kelmadaha kaga aadan ay halkan nooga sheegaan qadiyadaasi aan ka hadalnay waxaan mar labaad rabaa inaan idinka mahad celiyo sida sharafta leh aada waqtigiinina usoo noqdaseen kulankan uga soo qayb qaadateen waxaanan isxasuusinaynaa mar walbaba in ugu dambeynta iyo gabagabada shirkan laga soo saari doono baaqaasna uu noqon doono baaq loo diri doono dadkii aan ka hadalnay ay noqon lahayd xag dowlad iyo hadday noqon lahayd xag shacab iyo hadday noqon lahayd inta micnaha arrintan ay khusayso oo dhan insha allahu tacaala waxaan kaloo kula dardaarmayaa nafteedii naftiinaba inaan mar walbaba ka dheeraano wixii dulmi ah oo dhibaateynaya dad muslimiina oo muslimiin ka sokowna ah Soomaali annaguna aanan noqon kuwo u horseeda ummadda ay matalayaan fidno iyo dhibaato kale waxaanan soo jeedinayaa mar labaad shirkayagan maanta inuusan naga noqon shir aan dad ku aflagaadeyno dad ku dhibaateyno laakiin uu noqdo mid muhiimadiisana aan ka gaarno ujeedooyinka aan ka lahayna aan ka gaarno loogana hadlo reality-ga iyo xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta wadankii insha allahu tacaala waa mahadsantihiin waxaan rabaa marka inaan marka hore anigoo ka bilaabayo madaxdeyda ninka walaalkay garab fadhiya inay raggan odayaasha xaggan fadhiya oo runtii ayagu matala beelaha aan ka hadlayno oo dhan koonfur waqooyi naawba Soomaali ay ka degan tahay beeshan direed ayay matalaan oo wadanka Finland ayay odayaal yihiin waxaan rabaa marka nin walba magaciisa iyo haddii la guran yahay ujeedada ay waxyaabaha kaga aadan shirkan inuu noo bilaabo insha allahu tacaala saana mikrofoonada isugu dhiibno kadibna ay dooda usoo wareegto bulshada kale ee horteyda fadhisay insha allah asalaamu waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد واحد الأعداء والحرة كثير. وحن كتر سنة هاي وضياشة دريد يبياشة في الليل. وحن ممكن معاد إلهي بأمركم رئيس قلت مركب بعض وحن ممكن معاد بعلنا يا تنبيني نشرب قلت هلكن السعودية شكرا كصوبي قلت. مصدحة وحن ممكن معاد بعلنا يا اللي يرضى. سواء بشيء شكل يعدي استسود برتبه انت كذب هل كان واحد من الشغل اللي وحوي با إنه بقصة صاروا حيالها دباتوين كا دعاء يعني مالو والبمقلينه أي سمين يا كنتي تذكي أي لو دورتي أما لو بطلت علي أمضى إني هجان أما أي كونفورمر كلا جهاد ليوتد كمدح ونقدان أو يبغى أي كلا hagaan oo ay dawlad ahaan iyo maamul ahaan ku hagaan marka hore waxaan halkan tacsi uga diraynaa wax alaali wixii ku dhibaato ka soo gaadhay dagaalada ka dhacay haday tahay Hiiraan haday tahay Shabeellaha Hoose iyo haday tahay Jubbooyinkaba waxaan Ilaahay uga baryaynaa wixii ku dhintay halkaas ee dhibaato ka soo gaadhay in Ilaahay naxariista janno ka waraabiyo wixii ku dhaawacmay Ilaahay uu sahlo kuwa ku barakacay ee beydadkoodii iyo guryahoodii ku waayeen Ilaahay cawil khayr qabo oo ka siiyo intaa markaan ka gudbo waxa aan midiyar halkan uga dirayaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed waxa lagu doortay oo loogu talagalay Xasan Sheekh Maxamed inuu ummadda Soomaaliyeed dhex noqdo ee koonfur degan madaxna uu noqdo ما يسدعين waxaan leenahay way muuqanaysaa dhibaatooyinka dadka ku dhacaya iyo waxyaalaha dhibaatada loo geysanayo iyo dadka la barakicinayo ee lagu barakicinayo shaarkii dawladda iyadoo loo gashay
qof walbana taariikh baa ka hadha waxa aan nuur kaga baxayaa hadalkii xasan sheekh taariikhdaada dunyada kaga tegayso ama aakhiro kuu raacayso ama aad if kaga tegayso hadda ayay kula gudboontay inaad wax ka qabsato waxaana lagu eegayaa ummadda sida aad cadaalad ugu dhaqdo ama aada u wado ama aada u kala hagto waxaan kaloo doonayaa inaan halkan midya ka idhaahdo dadka xildhibaanada ah ee beesha direed ugu jira dowladda Soomaaliya ma muuqato waxtar ay leeyihiin oo ay maanta u qabanayaan dadka beesha direed ee ku dhibaataysan ee maanta lagu soo duulayo ee la barakicinayo ee wadankii iyo degaankii ay lahaayeen muranku uu ka taagan yahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa badhgeel wax la qariyo ka weyn deegaan dhulka ma jiraan jasiirado cusub oo maanta la helay meel walba dad baa deegaan u lahaa dad baa iska deganaa dad baa ilaahay ku abuuray dad baa ilaah ka awow soo jireenahay soo deganaa marka wax maskaxda ka weyn maanta in la yiraahdo 20 sano gudahood iyo 10 sano gudahood ayaa muran laga sameeynaya la isku qabsanaya oo ay la isku hormaraya marka waxaan leeyahay odayaasha beesha direed ama baarlamaanka beesha direed ee dowladda Soomaaliya iyo dadku wuxuu ku fadhiyaan meesha ay ku joogaan waxa weeye magacii direed ama magaca ha ka baxaan oo dadka ay metelaan hay yiraahdeen ma metelo ama sida ay kuwa kale wuxuu qabanayaan ee baarlamaanka kale wuxuu qabanayo ee dadkiisa wuxuu ku qabanayo ee dadkooda ugu qabtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريال آدي بدون ما ستين مانتا وحال آدي كلمة إلا يا شركة قيمها بدن هي هالك المسؤولين وهنتي لقيت رجوعيو أما لقيت سالة قاعدة وحبيشن دريد أي صوتها وحال هالك الربائل كيرا هذا لما قضوا كلية قضوا سدحات مدوري إلى كشيء waxaan rabaa inaan ka iraahdo laba qodob oo kaliya mid waxaan dhihi lahaa mid waxaan u dirayaa tacsi dadkii dhibaatada ku gaartay shabeellada hoose number 50 ee dhaawaca ah ee dhimashada ah ee barakaca ah ee u geysteen haddana dad dareeska dawladda qaba taa ayaa tacsi uga dirayaa dadkaas ilaahay waxaan uga baryaynaa in uu caafimaad siiyo kuwada dhaawaca kuwada dhintayna ilaahay jannadii ka waraabiyo waayo xaq ayay ku dhinteen dad waxay ahaayeen difaacayo meeshii ay joogeen tacsida labaad waxaan u dirayaa dadkii walaalahii ahaa ee ku barakacay ee ku baaba'ay ee dhimashadu ka gaartay ee guryahoodii laga gubay matooradoodii lagu daray webiyada lagu daray ee balweyne iyo agagaarkiisa ahaa ayaa tacsida u dirayaa midda labaad waxaan dhihi lahaa waxaan la hadlayaa maanta oo si toos ah rabaa inaan loo hadlo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku dooranay in aad madaxweyne u noqoto Soomaaliya maana dooranin in aad noqoto qof yacni wax allaali wixii rabo wax allaali wixii la rabo dhinaciisa laga dhameeyo kumaan dooranin dagaal 5 maalmood socday oo aysan dawladdu marnaba ka hadlin oo ay qaadayaan dad dareeska dawladda watay waxaan u aragnaa inay tahay mid yacni uu Xasan Sheekh oo adiga aad dhigtay ayaan u aragnaa marka waxaan ku dhihi lahay waxaan ku dooranay waxay tahay inaad madaxweyne Soomaaliyeed noqoto qofka bini aadanka ee adduunkan ku nool taariikh ayuu reebaa taariikh ayaa ka harta taariikhdaadu yisadqori mid baal mugdi ah gashay yisadqori Soomaalidoo dhan waxaan u maleynayaa beeshan direed ee maanta halkan isugu timid marka la fiiriyo Soomaalida oo dhan marka la fiiriyo 70% ayay ka yihiin shacabka Soomaaliya 70% ayay ka yihiin oo tira ahaan iyo tay ahaan marka la fiiriyo dawlad walba oo Soomaaliya soo marta oo aysan beesha direed taageerin ma yacni horumarna ma gaarto madaxweynena waddanka kama aadan noqon lahayn haddaysan beesha direed ku taageerin marka wanaagii aan geysanay maaha inaad noogu jawaabtid xumaanta aan maanta aragno marka
waxaan halkii kusoo gabagabeynayaa dadka qaarkood ayaa waxay leeyihiin dagaalkan wuxuu u dhexeeyaa hawiye iyo dir. arrintu sidaa ma aha. hawiye iyo dir dagaal udhexeeya ma jirto. waxaa weeye dad yacni rabay oo dhulballaarsi wata oo doonaya shaati dawladeed inay ku adeegtaan ayaa wada arrinkan. marka waxa weeye waxaa lagaga hortagi karana waxay tahay isku duubni iyo dadka oo garta qadiyadooda, waxa ay u nool yihiin, sida ay yihiin, meesha ay ku nool yihiin, deegaankooda waxa uu yahay, dadka oo garta ayaa lagaga hortagi karaa. marka anigoo hadalka sii dheereeyay waxaan kusoo gabagabeynayaa baarlamaanka Soomaaliya waxaa ku jirta 61 xubnood oo direed. 61kaas xubnood oo direed waxa ay matalayaan shacab weynaha direed ay matalayaan. waxaan aad iyo aad uga xumahay weli ma arkin 61 xubnood ee direed ee ku jira baarlamaanka. xataa waxaad ka dhigtaa 5 ka mid ah intay soo xilqaameen oo ay soo baxeen inay tagaan deegaamada dhibaatada ka dhacday oo ay ka hadlaan, weli maan arag. marka aniga ma garanayo waxa ay matalayaan ayaan garanayay. saas daraadeed waxaan dhihi lahaa baarlamaanka dadka noogu jira ee matala magaca dirta matala waa inay ka hadlaan qadiyadda iyo dhibaatada maanta taalla, waa inay ka hadlaan. mar labaad waxaan yani aad iyo aad idinkugu mahadcelinayaa sida sharafta leh ee aan uga soo qayb gasheen iyo sida sharafta leh oo aan halkan isugu nimid. waxaan rajeynayaa shirkan markuu dhammaado waxaa yani soo bixi doona baaq oo yani insha allahu tacaala aan u jeedin doono waxyaabihii kasoo baxay shirkan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. بسم الله الرحمن الرحيم. ugu horeyn dhammaan dadkii ka soo qayb galay shirkan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi qof waliba waa ka dherigsan yahay ajendaha meesha aynu isugu nimi oo ah baaq iyo cambaarin wada socda. ugu horeyn horta intaanan baaqa u gelin waxaan tacsi tiiraanyada aanu u diraynaa waanu ilaahay u weydiinaynaa inuu arrinkii lagu sameeyey cagta lagu mariyey abaabulkii barabaraalayaasha, anigu barabaraalayaal baan ada waa ninkaa joogtaa soo gashaday, ay ku qaadeen dadka iska degan ee aan waxay garabsadeen aanu jirin, cirooli iyo caruur, xoolo, guryo lagu gubay, iyadoo arrinkaa uu ka dambeeyey ama se aan odhan karo waxa ka dambeeyey oo furo u ahaa dhuldoon ama dhul kororsi. waayo ninka beertiisii la gubay ee gurigiisii la gubay, dee haddaan la doonayin meesha beer laga samaysto ama guri laga samaysto, dee awalba Soomaali waa isdili jirto beeraha iyo guryaha iyo xoolaha iyo laysma qixin jirin. arrinkaa anigu ma lihi qabiil baa qabiil ku duulay ma lihi. waxaan leeyahay waa arrin ay soo abaabushay, soo maleegtay dowladda xamar ka dhisan. kolkaa waan cambaaraynayaa, anigu odhan maayo wax ka qabtee cambaar kulul baan dhakada uga tuurayaa dowladda iyo nimanka madaxda u ah. waayo xaggay ka dhacday dagaal dhacayay oo dad lagu laayay oo dad lagu barabixiyey oo dhulkii lagu gubay. wax dagaal oo ka dhacayaa meesha markii dowladda la weydiiyey waxay tiri gudoomiyaha gobolka Hiiraan wuxuu yiri waa 3 qof oo ceel isku dilay. dowladduna waxay tiri maba ka warqabnaba oo ma ogi. marka arinku caynkaa yahay waxaad garanaysaa in abaabul xagga dowladda ka yimi uu yahay ee aanu ahayn dad shiciba abaabul ka yimi oo is yiri qoladan qolo ka meel ka riixda. waayo Soomaalidu way istaqaanaan oo ninna dee qofku halku degan yahay gurigiisa iyo daartiisa yar iyo xariishkiisa yar
qofku ma yidhaahdo hebel ka gubiyuu kusoo noqonin laakiin dowlad baa taas oo kala samaysa oo tidhaahda meesha yaan dub loo arkin yaani jirin jiidaas mana dhici karto ma noqonayso mid soconaysa sidaasi darteed waxaan dowladda koonfureed xasan sheekh uu madaxda ka yahay aan odhan lahaa amase aanu ku cambaaraynayna haddaanu beelaha direednahay diri in go' lagu qaado way ka weynti in go' yar lagu qaado la yidhaahdo waa laga barakiciyo ha ka yaacdo way ka weynti kii la barakiciyey iyo maatidii carabtayna meelay tegaysaa ma jirto hoygoodu waa kaa waxaana daba leeyahay ciidanka aad tuutaa usoo gelisay haddaad xasan sheekh tahay ee barabaraalayaasha dub isugu fakir oo ka noqo oo hoos u eg dadka iyo wanaagooda iyo wada deegaankooda hoos u eg waayo anugu kuwan kale ee laleeyahay dir bay ugu jiraan baarlamaan maba aqoonsani oo ma garanayaba waayo hadday dir ugu jiraan kii beledweyne u dhashay oo kan beledweyne u rooraya kii meel kale u dhashay wuu u roorayaa maxaa iyaga loo waay haddaanay la haystayaal yar ahayn iyaga wuxun baa lagu kororsadaaye waxba looga jiro haddaba mar labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii iyo eheladii guryahoodiina la gubay xaruurtoodii iyo eroolahoodiiba la laayay ilaahayna waxaan uga baryayaa in naxariistii janno wixii dhintay uu ka waraabiyo waxa kalena meeshii idinku waa meeshii new waayo muure iyo meelaha kale i janaale iyo tuulooyinka fara badan yidhaahdo mubaarak awdheegle cadiimule waxaasoo dhan meeshii dagaal ay ka dhaceen intii ku dhimatay allah ha u naxariisto intii ku guryo beeshana waxaan leeyahay bedel khayr qaba ilaah idin siiyo intii dee maaragtay dhaawacna ilaah ha shaafiyo midaas waa taa tan labaad waxaan leeyahay tan saddexaad waxaan leeyahay waxaan baaqalkan ugu dirayaa amba madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo aan is leeyahay titlekii meesha uu ku joogay ama magacii lagu doortay oo ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu dee ilowsan yahay oo maaragtay malaha dee uusan akrisanba magaca meesha uu ku joogo waxaan leeyahay marka hore akriso magacaad meesha ku joogto taasoo alajeeda waxa waaye dowladda federaalka baa lagu yiri marka hore qof kasta gobol buu kasoo jeedaa gobolkiisuu la degan yahay asigana maamulanaya saasaa lagu doortay tan saddex afraad waxaan leeyahay madaxweynow laguma dooranin qabiilkuma dooranin 275 oo qabiil kasta Soomaaliya ka kooban ayaa ku doortay ummadda Soomaaliyeed inaad wanaag ku hogaamiso lagu doortay kuwa badan ma eedaynta waxaan ku leeyahay wa ilaahi subhanahu wa ta'ala quraankiisu wuxuu ku yiri wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba madaxweynaha taasaan leeyahay uu idaawanaya كلمة وكأكيا إلى سبحانه وتعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى ما عادل مسمية ولو كان ذا قربى هوا هات قراوة هذا هو إذا الله أبتغى ولا كان إن أبوه لسوء يرد كوان أو بنادر جوكته هذا توتو سوق لسوء قبل الصومالة كو حسوق ذو تاس لقوم دوراني إن فعل كان كدعية شوالة هوسة شوالة دحى وكو إلواتن لقوبي تولوي يو مارتي كو يطوان تولوي لقوبي شوالة هوسة يو أفر إلى لح تولوي لقوبي كبحلي يدفو أنا وانا قانا كبحلي يدفو إنتو واتيك بردو كل إنتو وان قانا واتيك ودادك لقوبي ركعية حمت ذولي وردادك دولدنا ما يكو أقوليهين ويكون اعتراف سنجين ويشقي سنيان وحبك عمر هوان ساق حكم هبرك عينين
dee waxaan isleeyahay saasayba xoolahooda hayso mushaar kaa doonayn bisaas dowladnima ku ogol yihiin taas waa mid weeye malaha dowladda waxaan isleeyahay dowladda maanta inay tahay dowlad NGO ah oo rabtaba maaragtay dadka inay xero ku oodo kadib raashin ay u kala soo siiso taana waxaa kaga daliil ah meesha la yiraahdo jawhar baa u horeysay madaxweynaha laftiisu wuu tegey amisom baa lasoo diyaarad buu qaatay meeshuu tegey $50,000 buu u yaboohay ummadan $22 laga gooy webi lagu soo fatahaadiyey $50,000 haddana inta kale waxaa leeyahay xer ha loo ooda hala siiyo madaxweyne waxaan ku leenahay dadka degan shabeellaha hoose iyo hiiraan webi qarkiisa degdad tacabata waaye xoolo bay leeyihiin matoor ay leeyihiin dhulkooda bay haystaan ku filan haddaad istiri hala dabakici hala barakiciyo xer ha lagu oodo xamar hala keeno kadibna loo mooryaa ha loo dhiibo raashin ha loo kariyo caawina midda nuuraysa islaanta yaroo fiican ba habeenkii mid mooryaa ha kubsaada is leedahay wallahi ka tab ma imaanayno anag bartayna baan joogayna gur hadad gubtay waxaa samaysada raashin yaroo bakaaraha ku urayna annaga naloo qeybi maayo beer buu ilaahna siiyey alxamdulilah inta dhaqanintii noolna waa ay dhaqanaysaa oo ilaah bedel khayr qab u siinaya taas oo mid weyn ciidankana leeyahay ciidan la kala qaadayaa iyo wax baa lagu soo dirayaa ciidan Soomaali ka dhaxeeyo oo shanta Soomaali hadda leeyahay 4.5 la sheegay ka dhaxeeya ma jirto ciidanka isku soo dir waa beel way kana masuud la sheegay hadda maanta lafteeda la sheegay nabarkooda loo dirayaa waa beel way maaha ciidan daarad iyo raxweyn iyo cid kasta ay ku jirto maaha cid la soo tababaran cid gooda loo soo tababaraya marka madaxweyne anaga taa kalsooni kuma qabno waxaan leenahay dhulkeena naga maamulana gobolka ilaa banaadir muqdisho waa 18 degmo ka kooban yahay hal reer baa haysta maxaa u diido gobolada kale inay reerkoodu taliyaan ayagoo ku ixtiraamsan oo madaxweyne ku leh marka waa timid waa kaa soo dhaweynay nabarkoodana Soomaali salaam baa lagu saaray qada lagu habeen maalin baad joogtay meesha marka xeebta ku dawaalatay maxaa u diiday dadkooda meesha degay in dadkooda ka tashadaan maxaa u diiday mis waxaad leedahay aqoon male professor waa leenahay general waa leenahay cid kasta waa leenahay anagu saas ay tahay hadii saas adoo nala dagaalamayo oo maartay xamar ka soo abaabulay waxaas oo dhan ayaa hadii madaxweyne ku leenahay waa ogtiin dagaalkii 18 ka dhacay number 50 madaxweynaha waxa uu tagay odayaal oo loo sheegay dagaalka jooji baa la yiri way hara joojinay buu yiri meediyaha ku jirta cid kasta way akhrisan kartaa meeshii inuu jooji laga sugayo 12 tikniku ayuu ku soo kordhiyay waxayna dhacday suuxdii in meeshii dadka ay qaxaan kadib dib la qabsiiyo dib in isqabadsiiyo maartay ma ahayn caadi Soomaalidu dhaqanka Soomaaliya u yeela ma ahayn baa isleeyahay taariikhda inta waa yarahay laakiin inta taariikhda Soomaaliya ku xasuusto dhaqankaas waxaa lahaa nimankan de xabashada Itoobiya meelaha ku dhaqan baa islaamay isleeyahay marka saddexda dhaqanka noocaas ah oo saddexda magaalo saddexda gobol lagu sameeyay waa hal ficil hal meel laga soo awaawulay marka waxaan leenahay madaxweyne madaxa meel la salaaxo madax meel ka sareyso waa salaax la taabtaan malaha meesha adag madaxeed ah ee waxa lagu wada naga joojina ma qabtaan aayadii aan ku iri wayda qultum fa'dilu walaw kana dha qurbaan baan kaaga tagay taas islaamnimadan waxayna faraysaa rasuulka xadiiskiisa wuxuu yiri al-islaamu man salima al-muslimuuna min lisaanihi wa yadihi islaamnimadu waxay ku jirtaa qofka carabkiisa iyo gacantiisa in laga nabad galo ummad 4 dowladaan baan hayn ummad qor la cararayso oo wax un dirayso wax kas wax inay dish wax inay dhacdo intuu soo de waxaas de ma aragtay ma la fahmayo waxay tahay islaamnimada maaha adduunka wala laga tagayaa qof kasta qofka shal jooga maanta ma jooga doctor baa malena in ma soo gaabin ku xidba Soomaali soo maraadata kulligood hoos bay ku jiraan marka tan kale waxaan leeyahay baarlamaanka nimanka noogu jira oo beeshan halkaas fadhida kaga jira oo ku 60 ka ama 60 lagu sheegayo horta waa dad adiga formalita ah oo sambal ah meesha iska fadhiyo kuraasta taas waxaa kaaga degaya markasta intuu beesha la gumaado ayaga loo soo diraa hadina
barnaamij oo lidaado qawdu maqashay waxna ha u qaban ayaga la soo horeysiiyaa marka labaad waa loo hanjabaa marka kalena hanjabaad baa loo jeediyaaba marka waxaan leeyahay ayagana nimanka bay halkaan fadhiya war hadday dadkaan ummadan aad mateli kareen horta wasiir meesha markii baarlamaanka la yidhaahdo ra-iisul baarlamaanka ayaa u sarreeya ilada isku xigeenoo inta kale ku xigtaa ma kala sarreeyaan waa dad isku taytal ah ama dee maaragtay isku maaragtay meel kasoo waday oo waa isu garaad ah ma kala sarreeyaan marka nin baarlamaan sheeganaya oo aan reerkiisa ka heli karin wasiir reerkiisu u hadlayaa ninka baarlamaan reerkiisu u hadlayaa ninkas reerkiisu u hadlayaa reerka inta laga xasuuqo oo markaad madaxweynihii iyo dadkii u tagtana jawaab lagaa qaadanay bedelta adina ku soo diray lagu leeyahay war balkaale ugaas hebel aad hebel oo kaalinta barnaga hormar oo guriyada dee dhacay markaa hayaalin lagu soo dhiiba leeyahay barnaamijka inaa qawdu naqsho wax ugu qabanay waxaas de ma soconayaan bal haddaa dadkana wax u qaban karin ma tali karin oo meesha maxbuus ku tihiin bal shartiin un dadka kala aamusa shartaad meesha ku haysa dadka kala aamusa waxaad arkaysaa meesha waa la gubay xamar buu fariisanaya wuxuu leeyahay warqad baa saxiixay war ninkii la dilay iyo kii guri laga barakiciyey uma tegini bal horta jawlada fakulti wax la yidhahda bal soo arag meesha wax yaala bal wixii ka dhacay laakiin de inad warqad iska saxiixata oo meel la tegi waa laga fiican yahay saylata aniga okay insha allahu hadalkan waa dheeri waa malaynaya rag fara badan odayaal fara badan baa halka fadhiyo marka insha allahu taas waxaan leeyahay madaxweynow waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa baan kaaga tegaya inta kaloo meesha joogtana oo dee dhinacaada fadhidana dee ayagana ilaah ha ka baqeen haddii wasiir yahay haddii madaxweyne uu yahay haddii dee maaragtay baarlamaan uu yahayba waan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan walaalaha maanta halkan isugu yimid oo yani isugu yimid in ay walaalahoodii in ay muujiyaan in ay ka xun yihiin dhibaatooyinkii ku dhacay dadkii walaalahooda ahaa marka dhammaantiin waxaa idin leeyahay waa mahadsan tihiin maadaama aada soo qaadensaan khayr badan ilaahay waxaan ka rajeynaya ilaahay subxaanahu watacaala in insha allahu tacaala uu xasanaad idinkaga qoro tilaawooyinkii aada soo qaadeen midda labaad waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan walaalihii ku geeriyooday dagaaladii yani tacadigi lahaa oo loo geystay oo ka dhacay dabcan dhulalkii oo shabeelooyinka iyo gobolada hiiraan marka ayagana insha allahu tacaala dumarkii iyo caruurtii iyo odayaashii iyo wixii meesha ku dhintay waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu watacaala qabrigooda allah u waasiciyo allahna u naxariisto dhammaantood midda saddexaad insha allahu tacaala waxaan laba hadal u kala dirayaa hadalna wuxuu ku socdaa dadka yani walaalaha ah dabcan yani maadaamay islaam yihiin nabigu wuxuu leeyahy alayhi الsalaatu wasalaam kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamu damihi wa maalihi wa cirdih yani qof kastoo muslim ah qofka kale oo muslimka ah waxaa xaaraamka ah dhiigiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa marka dadka walaalaha ah waxaan dhahaynaa yani insha allahu tacaala kawaantooba in dad walaalihiina ah oo islaam ah in aad yani si gardaro loo dilo in dhiigooda lagu tunto in sharaftooda lagu tunto in yani waxaa maalkooda xoog lagu qaato waa waxyaaba runtii aada loogu xumaado dagaaladii dabcan soomaaliya ka dhacay 20 sano waxyaabihii ugu foosha xumaa aan usoo joognay waxaa kamid ahaa oo shareecada islaamkana meel ay kaga qoran tahay aysan jirin in yani degmada janaale uu joogi jiray ninkaasi marka mar waliba wuxuu wadan jiray bistoolad oo 2 bistoolad ah midna waxaa ku jirta 3 xabo oo isdhaafsan oo yani bistoolada amaanlaadi loo yaqaano midna waxaa bistoolo kale oo teete ah marka degmada janaal ayuu joogaa kadib marka wuxuu sameynayaa jidka caadiga markuu maraayo qofkii asiga ninkaas fiiriyo yani maaha inaa wax kale ku samaysid qofkii soo fiiriyo oo u dhashay degmada janaale haddii ay indhihiisi qof kale indhihiisa isku dhacaan wuxuu leeyahay istaag markuu soo istaajiyo bistoolada ayuu wareejinayaa haddii wuxuu fiirinayaa marka wixii usoo baxo haddii ay xabad usoo baxdo iyo haddii wax kale usoo baxaan buu qofka isaga u taala marka qofka qaabkaasaa lagu dilayaa marka taasina marka ma aha wax oo shareecada islaamka meel ay kaga taala habeeraatee ma jirto qofka in lagu xadgudbo oo yani ilaa iyo heerkaas la gaarsiiyo yani daciifnimo
يعني هذا يودي بدن تحي بدل لبعض دتك طبعا كل شيء يعني قبل الشباب يعني شبيلوينك iyo hiiraan oo dabcan maanta dagaalka uu ku socdo ayagana waxaan leeyahay haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faraj idin furo iska ilaaliya in aad ku xadgudubtaan qof kale oo walaalkiina ah oo muslim ah yani adinkoo yani waxaa u fiirinaya waxyaabo kale yani qofka muslimka asina sidoo kale wuxuu leeyahay xaq marka weligiina waxaad ahaan jirteen dad taariikhda soomaaliya baal dahab kaga jira haddeertaan insha allahu tacaala sharaftiina inaad kor usii qaadaan mooye hoos yaan loo dhigin marka dadkan yaa lagu xadgudbin insha allahu tacaala waana mahadsantiin kulligeena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa marka hore waxaan mahad celinayaa dadkii ka soo shaqeeyay kulankan aadka u quruxda badan oo ku casuumay walaalaha Soomaaliyeed oo yiri beesho ayaga ha uga tashato baan marka hore mahad celinayaa. marka labaad waxaan salaamayaa beelaha direed oo isugu yimid barnaamijkan oo mataqaanaa yiri dareenkayga iyo shucuurteeda aan muujino hadday ka yimaadeen gobol hadday kala soo jeedaan dhammaan waxaan u malaynayaa waa meel kasta oo degan tahay maanta shucuurteeda waa isku mid hadday waqooyi tahay hadday Itoobiya tahay hadday shabeellada hoose tahay hadday gobolada dhexe tahay iyo haddii ay hiiraan tahay intaba waa isku mid dadku waxa weeye markii dareenkooda ay mideeyaan ka bacdi bay dadnimadooda hirgashaan waxaan u malaynayaa meeshaan maanta dareenkayga midaysan waxaa isu kala keenay wax kaleeta ma aha waxaa isu kala keenay wax aan horey loo arki jirin baan la kulmay waxaas waxaa ka mid ah waxyaalaha mataqaanaayay nabaad guurka waxa la yiraahdo Soomaaliya way dagaal jiray dhibaatooyin badan baa soo mari jiray waxyaalo badan baa mataqaanaa dadka kala dhex gali jiray nabaad guur waxa la yiraahdo baa ka dhacay nabaad guurkaas wuxuu yahay meel Soomaaliya way isdil jiray weligeed yaa leeyahay nabaad guurku wuxuu ka dhacay haddii laba qolo istagaasho waa la kala waxaysan jiray gurigiyo la gubayo mataqaanaa dadkii la barakicinayo shaatiga dawladda lagu adeegsanayo dhibaatooyin badan baa mataqaanaa meesha ka muuqday marka horta waxaan u tacsiyeenayaa dhammaan dadkii wax ku noqday gobolka shabeellada hoose lambarkoton iyo dhammaan iyo kabxanley intii ah waa u tacsiyeenaya waxaan leeyahay intii dhimatay Soomaaliya iimaan Allah ina ka siiyo intii nool oo dhaawacana Allah caafiyo baan leeyahay waxaan rabaa markaa inaan ka hadlo hadal badan aniga iguma sii jiro kolley bilaadanku ma taqaanaay waa iska waxaysanaya waxaan jeclahay inaan ka hadlo in yar oo balbeesha dhexdeeda inaan ka hadlaan jeclahay anigoo ku cabariya dhanka suugaanta xaggeeda baan jeclahay inaan ka hadlo insha Allah bismillaah kariim marka hadda waxaan bilaabayaa suugaantii xoogaa kolley dhaliilaha xaggeedana qeyrada maanta bay ku saabsan yihiin hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye mirihii diriyo waxaynu nahay kalama marmano mirihii diriyo waxaynu nahay kalama marmano midigta iyo bidixdaanihiyo laba matanayo waa inaan midaynaa caqliga mahuurta weeyaano waa inaan midaynaa caqligu mahuurta weeyaano anigana inaan gabay marshaa ima soo marino intii magacayga sheegatay waan madownahayo oo maydkeenu wuxuu dhooban yahay waa markaa caddeeyo muqdishana laga soo diraa moolka kii qodayo muqdishana laga soo diraa moolka kii qodayo ha yeeshee hargeysa ka maqan meeshii aan rabayo kabxanley wixii lagu malkalay ma mogayno kabxanley wixii lagu malkalay cidii ma mogayno waxaan magaca wada sheeganaa miraaja butaado milaysiyaadii ay tabaabadha matadii cunaye waa inaan midaynaa caqligu mahuurta weeyaane waxaan umaleynaya hadalka aad baad umahadsantihiin hadalku kolley hadallo badan baa igu sii jira laakiin waqtigu aad buu u kooban yahay dareenkayga in badan baan jeclahay inaan ka hadlo oo waxa weeye aan waxyaalahaas uga hadlo waxba yaynaanan kayscanaananin waa la arkayay in dalbalaarsi uu jiro 20 sano waa la arkayay waxa dalka ka socda haddana shir walba dirku fadhiyo 4.5 ka aqbalayno marka hindi uga hadlo marka ninka doonayay imikana inuu qabsado shalayna haysto way dhacday oo maanta janabku labisay oo intaa weeye jidaan tegay 250 booyadoodu sidaa u taagan baa la yiri dhacdaale
250 booyadood oo jidda waraabiya in dhacdaa lebale lacagtana markuu kaaliyo dekeda rag inankii 20 jirka ahaa ee 20 sano marka joogay meel kale ma yaqaano gobolada dhuxu ka yimid ka aqbali maayo xaqiiqda meesha taala waa taa xawaadlahana weynaynaysan war meenu hayn kuwii 12 tiknikada ku qabsaday ninkii xaatir loo oran jiray shalayto haye maxaa reality-ga loo diiday waxa weeye haddaa wax iska dhigtaan unbaa wax noqonaysaa maanta waa Afrika meeshaas qofkii qori haysto unbaa wax ayuunbaa cadkiisa loo dhigaya maleeshiya ha naloo qorayo ha naloo hubeeyo waxaad adigu markaad urursan tahay ya adiga qabsan kara dekadii bay haystaan dekedaa uu lacagtaa ka sameeyey gacanteennay ku jirtaa marka qori baad sheegaysaa ee dowladaad heshiis la geli kartaa waxaan leeyahay wixii caana qabtobee dowladood la qabay anuu waan tegayaa laakiin har shirkan iyaan lagu kala tegin shirka soo socdaa qabsoomi maayo haddii aan guddigii qabanqaabada imika la magacaabay haddii aan la mudaynin shirka soo socda waa iswada garanaysaa ama tembara ka kaale ama meel kale ka kaale ragga hawshan ku fiican oo odayaal iyo dhalinyaraba leh oo guddiya oo haweenkuna ku jiraan haddiis 2 dumara 7 xubnood oo odaygaasi sheegay imika ha la magacaabo iyagu way kulmi karaan looma baahna in laysoo wada ururiyo xaafad bay noqonaysaa marka dambe sheekadu la jaan qaada ya waxaan xasuustaa in aan hadiyo goor soo hadal qaado Ibrahim Garla leeyahay abwaana ayaa wuxuu yidhi waxa ku jirtay gabaygiisii maanse uu leeyahay wuxuu yidhi ninkuu yidhi ma saannahay yani waa simanay ninku leh ya ood weliba igmatood madax ka dhigtay ya oo adigii haddana dib kuugu tacadiyaya ninkuu yidhi ma saanahay mar la qaata laabada buu yidhi midha aad la leedahay yuu ku cunin ismoodsiisa hadduu noqdo maalay murkasii qaraar noqo buu yidhi yani intaan ka xasuusnahay marka waxa weeye war meeshana waan fadhinaa ilaa maalintii u horreysay ilaa 4.5 ka iyo sheekadaasi soo baxday way joogaan dirku kuwan hostage-ka ee xamar jooga iga daa laakiin hoggaan dhaqameedyadii iyo dadkii beelaha hagi jiray way dhaqan yihiin way jiraan iyaga ha lagu adres gareeyo wixii la dirayo iyaga ha lala hadlo iyaga ha la abaabulo la yidhaahdo war shir dambe hadday maanta waxa u weynay samayn karaa waxa weeye iyagoo baarlamaanka un ka baxa oo ay laangaro noqoto ama hadday tegiba waayeen shirarka socon maysa dowladdii 4.5kii dabeedna United Nationka dirka u iman lahaa iska daa may geeyba u baahday iyo halkooda ugu iman lahayd marka waxa weeye inaan isku ku noqonin waxtar baa loo baahan yahay qurba joog waxay qabtaan waa lacag yar oo diraan oo de baahidaas oo aanay weliba dabooli karaynin laakiin waxaynu samayn karnaa dee kuwan wax bixiya hay-adahan wax bixiya halkanay wada joogaan xarumahanay wada joogaan solidarity-ga haddaa imika u tagtaan halka oo u sheegtaan waxa dhacay idinkoo diraya u sheegtaan waxa dhacay waxaa laga yaabaa dalkii bay joogaan inay tagaan oo ay teendhooyin iyo u geeyaan dadkii marka waxna waa la kala leeyahay hawshee wixii mucaawano ah albaab walba garaaca NGO walba garaaca international organizationka garaaca crisiska u sheegay crisis groupka u qora waraaqo ha la iskuna xidhmo imika waanigii siciid ku lahaa qoladii London waxay igu yidhaahdeen ragga shirkaa soo qaban qaabiyey nagu soo xidh waa in mar la wada jaan qaada oo meel Brussels baa la tegi karaa adigoo cidina kuu maqnayn wuu filiqsan yahay imika war xibin iyo xeeb Saleemaan baa doonaya inuu federal ka qayb galo hadday ilaa kismaayo sheeganaysaayo
haddana ma jirtid waayaan darowey ya marka hala yaabin inankan waxa lagu soo akhriyey ee caydiid soo dagaalgeliyey ee meesha ku dhashay ee ku koray ilaa tankiisana arkayo inaad sandooyin u dhex marayay aanu lahayn laga dhaadhicin kari maayo waxaad ka timi cadaado ya laakiin force markaad samayso magacaagii iyo dalkaagii iyo ilaalinaya maatidaadii ayuunbaa lagaa baqayaa nin sacada oo xeef la yidhaahaya airport ka samaystay ha markaasay naagtiisiina ballidoog lay qabsatay waa 2 warlord 20 sano waxay lacag ka qaadanayeen airportadaas naagtuna ballidoog la haysatay isna halkan haysatay markuu lacageystayna ugaas baa laga dhigay xildhibaan baa laga dhigay Nairobi buu fadhiyaa maalin baan ku arko meesha mushaar kuma doontaa buu yiraahdo wax xildhibaan mushaar kuma doontaa 3 bilood markaan maqnaado wuxuu mushaar ku falayaa saddexda building ka uu degay mooyeen labada kale ka soo horjeeday isagii u kareysay isaga leh gurigiisa iyo gurigeena Kenya too isu muuqdaan mooyeen aragteen state house-ka agtiisa weeye gurigu ka iibsaday guriga waxa umada meesha joogtay ay moodayno in ay dad caadi yihiin way imaan beeleen ninba 10 years wuxuu ahaa warlord waxaa leeyahay burcad badeed yani intaasaa kaaga filan haddaan beenta iska dhowro 50 milyan oo US dollars uu haystaa haddana waxaa la yidhi kaalead filim martiishide oga lacagad weynaa kaale filim baad masilaysaa mase inta lasoo khiyaameeyey maanta Brussels isku xidhay waa kaasoo miidhan dadkeedu سلام مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka aniga horta hadalka waa iga yar hormaray inaan arrimihi hore aan ka hadlaan aniga wax badan oo dadkaan ay ogeynaan ogahay dadka haddaan dib wax yar ugu noqdo meelaha oo la gubay tuulada Kamxalli la yiraahdo ayaan aniga horta ogaan u ah ku shaqeynaa ma bas ma afkum diloon waan soo qolay marka waxa waaye ma ahan hadda anaga cidaas oo dariska aan oo meesha xasuuqday balweyne oo deganahay laakiin wax beer la yiraahdo iyo waa ka waaweyn qadiyada kala iska jira moobe balweyne oo degnaa laakiin beer soohin kama diin anaga wala kala yaqaan balweyne 14 qabiilad degto marka horta waxaan leeyahay balweyne waa wada degnaa waa wada leenahay jaamacadaha ku yaalo jaamacadaha waxba ka dhisanay Finland anoo joogno lacagaha laga qaaday hadda iska dhaxmarayay professorkoodii oo Mareykanka yimid oo warfaa la yiraahdo meesha ugu yimid oo gobolka dhanka Socday lacagtii waxa la aruuriyay xasab xulo barnaamijka ku jiro hadda ba joogo marka meesha aan jaamacadaha ka dhisanay buundooyin ka dhisanay isbitaalka aan ka dhisanay oo lahayn oo wax kala hayn hadii la yiraahdo ma la hidiine isaga guur meesha ay dirdirta aada waa nasiib darro saasna lagu guuro wax kala jiro marka hadda intaas hadaan uga baxo wixii jirana way iska soo bixi doonaan oo kalba wuxuu Ilaahay keenay way imaanayaan laakiin nin been ku hadlay iyo nin wax xaqiiqi iyo ayda hore u suurto weydii midaasoo intii waxa sameyn jirtay meesha aadeen waa la yaqaanaa kuwa hadda wax sameynayaan kuwaas meesha aadeen uma ka dab aadi doonaan haddii Ilaahay raalli ka dhigo marka kulankan haddaan u soo noqdo kulankan intaanu ka dhaxeeyaa meeshaan ayadu ka dhaxeeyaa aniga odayaasha ka mid ahay dhalinyaradii meesha soo qalqaalisay way mahadsan tahay aan u sii wadano qof walba waa u xor inuu hadlo kelmadiisana yiraahdo bal marka hore aan xiriiriyo insha Allah sultaanka hadii ilaahay inuu waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim mudane iyo marwey waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaa mahad iskale ilaaha naxariista guud iyo tagaalba u naxariista mu'miniintiisa
inoo ogolaaday maanta inagoo meel kale fog joogno inaynu kulankan ka wada qayb qaadano. waxaan mahad u celinayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay kulankan ee waktigoodii iyo dhaqaalahoodii intaba u huray isku howlay inay yimaadaan oo waktigooda ku lumiyaan kulankan inay ka soo qayb galaan. waxaan mahad gaar ah u celinayaa inamada isku howlay inuu qabsoomo kulankani Sacaadadiin iyo Siciid Guureed iyo inamada kale ee la shaqeeyay dhammaantood waan u mahad celinayaa. walaalayaal sheerka la yidhaaho dir waa reer aada u ballaaran. waxay degaan Kenya, Ethiopia, Soomaaliya, Somaliland, Djibouti. intuba maanta diyaar waxay u yihiin inay wax wada qabsadaan. intuba waxay diyaar u yihiin inay nabadgelyada taageeraan. waxay intuba diyaar u yihiin reer ka mida dir in aan cidi xumayn karin. walaalayaal waxaan leeyahay reerka dirka la yidhaahdaa wuxuu caan ku yahay nabadgelyada. waxaanu mar walba ilaalinaynaa nabadgelyada iyo daris wanaagga iyo wada dhalashada ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay degan yihiin. waxaan walaal idinku guubaabinaya gaar ahaan maanta dadkiina aan la hadlaya ee reer Finland inaad isku xidhantaan idinkoo aan cid dulmaynin, cid ku xumaynaynin. waxaad tihiin reerka ugu badan Soomaali. badnaantaasi ma doonayno inaynu cid ku dulanno, ma doonayno inaynu cid ku xumayno. cid kasta waanu ku wanaajinaynaa. innaguna waxbaynu ku wada qabsanaynaa. walaal waxaan idinku ogaanayaa dadkiina reer Finland inaad isku xidhantaan, inaad waddankeenii dhibaatooyin dhaqaale xumo iyo mid duruufo dagaala ah ayaa ka jira. waxaan idinku guubaabinayaa inaad ka qayb qaadataan nabadgelyada, inaad ka qayb qaadataan dhaqaale xumada, inaad ka qayb qaadataan horumarka. walaal waxaan idinku guubaabinayaa inaad samaysataan guddi isku kiin xidha. waxaan idinku guubaabinayaa in aad dhaqaale iyo sanduuq samaysataan oo marka ugu horreysa dul wada heli maysaane intiina isu timaada ee ugu horreysa aad sanduuqaa bilowdaan si aad ugu tabarucdaan dadkiina iyo waddankiina, si aad uga qayb qaadataan caafimaadka, waxbarashada iyo waddankeenu waa biyalayahay iyo biyaha. walaalayaal waxaan aada idinku guubaabinayaa inaad isku xidhnaataan. haddii aad soo qaato dawladda waxaan halkan u marinayaa fariintaasi dawladda waa iyada ayaa dadka ka mas-uula. waa inay ilaalisaa nabadgelyada. gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa la geynayaa ciidan. madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxa aan uga digayaa oo aan xasuusinayaa inuu ciidankaa uu geynayaa uu ka dhex muuqdo reer oo qolo loo arko uu isku taxallujiyo inaan ciidankaasi noqonin ciidan reer ah. haddii aan la hadlo walaalkay Axmed Aadan waa madax dhaqameed. maalina waytana galaan waxaan leeyahay malaa isagu waxa ka keenay shaydaan. waanu ognahay nimanka dir halkay seexdaan. kelmadaasi walaal ma aha Axmed Aadanow kelmadii madax dhaqameed. waxaan leeyahay kelmadda waxa kaa keenay shaydaane ka istaaqfurlayso. waxaa lagaaga baahan yahay inaad
inaad mar kasta u ololeyso nabadgelyada laakiin inaad ku hanjabto rag baan aqaanaa meelaha ay seexdaan walaal annaga nin waliba deegaan buu leeyahay deegaankiisana wuu yaqaanaa cid kastaa halkay seexato annaguse ma taarget kama dhigano mana dulmino qof jooga deegaan aanu leenahay hadday ka fursan weydo waxaanu iska celinaa ciidanka qoriga soo sita oo aanu la dagaalanaa laakiin nin guriga iyaga hurda kuma gaflo markaa walaal waxaan leeyahay kelmadaa shaydaan baa kaa keenay waxaa loo baahan yahay madax dhaqameed baa tahay aakhira iyo adduunkaba ninka madaxda ahi kelmadda afkiisa ka soo baxdaa haddii kelmad wanaagsan noqoto oo dadka isu keenaysana adduunkana way anfacdaa aakhirana way uga horeysaa haddii ay kelmad xun noqotona adduunkana waxay u reebtaa cawaaqib xumo iyo xumaan u taalla aakhirana waa lagaga jara markaa waxaan halkan uga baaqayaa madax dhaqameedka inay ilaaliyaan hadalkooda oo aanu noqonin hadalkoodu mid isku dira oo iska horgeeya ummadda soomaaliyeed waayo ummadda soomaaliyeed uma baahna dagaal way ka dhargeen isdil way ka dhargeen dib u dhac way ka dhargeen maanta waxay u baahan yihiin nabad iyo ninkii nabad u ololeynaya markaa madax dhaqameedka waxaan ku boorinayaa oo aan hawada u marinayaa mar kasta inay ka hadlaan nabadgelyada walaal haddii aan 4 kelmadood oo yaryar oo xumaanta dagaalka ka hadlaya halkan idinka sheego laba oriya walaala ilmaadeen ismaquunsha lama sheegin adduunka marka aan ugu liito maraan eedda sokeeye ilmahayga ku waayo maraan aaya la-aanta sheedigay ugu aano oo walaashay asay qaado mar hadday aqalkayga haddii layga adkaadiyo haddaa reestay idhaahdaba mar lay oohin u tay bal maxaan istakiiday afartii garjahoodba haddaan soo wada ooday xaggeen geela irmaaniyo markay beesho haraado u aroorinaya sawnigu gacmahayga kuma dhiibin ishii bari loo irkan lahaa walaal waad aragta cawaaqib xumada dagaal soomaaliya waa dad wada dhashay waa dad meel ka soo wada jeeda waa dad abti isu ah waa dad xidida waa markaad gacantaadaba qofaad wax isku tiinaya xumaanaad gashaba qofaad wax isku tihiin baad waayeysaa marka waxaan leeyahay cawaaqib xumada dagaalku waa taa waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga nin ragii ereygiisa astaan buu ku dhigtaaye sabbow eexma tidaadine aqoon ha igu cadaabin walaal waxaan mar walba idinkaga tegayaa inaa ilaalisaan nabadgelyada inaa ilaalisaan horumarka waxaan leeyahay oon ku soo gabagabaynayaa hadalkayga reerka bir la yidhaahdaa wuxuu mar kasta diyaar u yahay inuu ilaaliyo nabadgelyada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن آدي آد بقى سنت هاي runtiina waa kaaga mahad celinaynaa annagoo waqtigaaga inuu aad iyo aad ciriiri u yahay inaad nusiisay fursadan aan kugu maqalno oo dardaaran iyo guubaabo iyo wax walbaaba isugu jirta insha allahu waa soo wada xiriirina waan ku fasaxaynaa hadda baaraka allahu fiik salaamu calaykum waa soo wada xiriirina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم magacayga saxda waxaa la Axmed Qeyr Ciise Quule laakiin wax magac dheer aan aneesa la caan kooliyada Xasan Bariise waxaan ahay nin
kasoo jeeda beeshaan maanta meesha isku timi markii loo fiiriyo dadkii halkaan ka wada hadlana ninka ugu dhalinyaran ahaan hadda aaminsanahay waxaan iigu dhaliyay inaan meeshan soo fariisto oo ka hadla adinka waa dareemi kartiin waxaan kasoo jeedaa gobol galguduud khaasatan magaalada xeraale waxaa ogtihiin hadda ka hor ina dagaalo ka dhaceen waxaad ogtihiin dadka dii la iska soo weeraro in haddii la qabqabsado lihi jiray waa alqaacida oo etoobiya la geen jiray laakiin dadkii deegaankaasi haddii ka dhiidhiyeen oo ay waxaas fiirsan waayeen iska dhiciyeen dadka kusoo duulay oo dad aada uga quud badnaa ah markii loo fiiriyo kaarayaal iyo beebiyaal watay haddana waxaa ujeedaan in maalin walba qolo luqdii lagula laabtay marba qolo la weeraraayo maalin ninka maxallay la weeraraayo hadda ugu dambeysa waxaa loo dhigtay number 50 iyo markii in la weeraro dadka weeraraya waa la yaqaanaa ma ka imaanin boosaaso iyo hargeysa kama imaanin meelihii ka yimaadeen waa la yaqaanaa inaan magacooda sheega ma rabo dadkeena beesha kasoo jeedana waxay barteen maalintii qof dhintiin isku imaadaan inta kalena isma yaqaanaan aniga waxaa i saameeyey maanta halkan ay soo fariistay waxay tahay in nin dhalinyaro ah markaa maqaayadaha fariista la yihahdo kurdi baa taha ma hadli kartid waxaana kalifa waxaa waaye dadkayga isku duubneen ilaahay ku dhaarsho waxaa idinka codsanaa inaan la isku imaanin maalintii qof la dila ama buul la gube in maalin walba la isku xirnaado turkuwaan ka imi oo 200 kilomitir halkaan u jirta maanta qiimo yar baan ku imi wax weynna ma aha waqtiba hal maalin la isku guuro waxaan idinka codsanaa in la isku imaado maalin walba la isma arki karo nin walba bariiska suuraansada waa la wadayo laakiin in sanadkii xataa hal mar la isarko 2 mar la isarko in wax la iska aruuriyo dadkaas maanta halkaas ka hadlaya calaacalkooda waa maqlaysiin dhibaata haysata hooyooyinkan oo kale guryahoodii laga buriyo oo maanta ilinta ka qubanaysa adinkana halkaan maanta iska wada fadhinaa nin walba waa iska ladan yahay hal inoo qiiroodida kuma jiro waa idiin wada jeedaa dhammaantiin marka in maalin walba halkaan dii la imaado la wada hadlo wax badan ma sameynayso aniga ii jeedaan maanta diyaar waxuu ah meesha dagaalada ka socdaa inaan tago oo dhiig u huro dadkayga wallahi way ka sanagayaan dadka inaa isku ama tiifiiliga arkaana rabin waayo maxaa yeele waddankan 2 sano in ka yar baan joogaa haddana diyaar waxaa inaad dib u laabto xaq maaha annaka dadka ina laga takooro maalin walba dawlad wax kuma haysano dadyow kalena wax kuma haysano waa ogtiin dawladda 61 xildhibaana ku leenahay maxay idan tareen 5 nin oo diraa si sharaxday hal nin codkooda ma siin waayin xataa lala gargartamo wasiir fiican taa weelno mise siin adiga maanta waxaa leediin min lambar 50 ka hadlaan min ka xabalay ka hadlaan maaya kaaba hadli karab waa baqayaan naftooda u baqayaan laakiin أنا أيك من إيديناي أيك مسكين من أضيال صدر تجربة وين أضياش على الله الله أضياش إن الله الله أو اللي راضح اللي ما لنا مثلا وأنا عد كانوا كهضلان ما أنت كتير إيش هذا الإسكامصه وقلت أنت قالك كسر إيران اللي ما لنا دولة قلنا إيران وجرت ويكهلن لما ركبت وقتي ويكهلن حتى عمر فرش كهلا ضد كده الشغل كلهن أنا كمان أرتين نديرك هلا صومال نعرف كده مين أركن بدنا طوفانا كل $1 ملايين للسي جور طوفانا كده على العيا للسي تذكر لما كنت اللي كبحلي حلقة فداو بماركن يك سوغيان مرك هذيك يديك سوغيان مرك هذيك الدولة دي ما مغنى عد كده مغنى إلهين وأنا أنا كسكت تشنا وأنا أنا كسجير جلنا وأنا أنا كسكت معنا يا حوان أنا قد عسنا دي أنت كتمي هذيك الدرت هذه أنت كتمي هذه أنت كتمي أنا كان اللي كان الدين كل جن هالمدانا وأنا بدو لنا وأنا كوكل المذوبي كل واحد كل عسين لكن مركن أركان مركن أنا كان أركان وينو مذوبان معنا كنا بدون نديني تذكر أنا ملاك وفيلا كنا الوقت ربضنا لكن ما تدير بمشي سكويمي دنيارا لنا قبضان لنا أضيالا لنا وحول بالنا قلت ما تهلا السماء تلفنا لك لقرطو شركة ما تكو كان ما هو بالكوز لابتو أنا عندي لا ولدي قبضها هلا صو حاضره دنبي ما قبيل كونو شو قبيل ربو شر أنا ما قاعد كيم هذا صاحب بدأ علينا اللوق ويقول قبيل هذا ولا صشان وأنا نسأل بس أنا صفرسان دنبي مية إلا شرو ما هالدنبي مركي يا قبيل ذي إني رجع عيرين يعني اللين كان وابيامل كان وإساق كان وجود بيرسي كان وسر وعصابات أنا كنا هلا أبيان ويا نقل يعني أنا كل جيني وأنا ما سنتين تفكير شركة شغل بقاعدين تكمل السلام عليكم هذا الكلام جميل سواء Somali oo dhan baan halkaan laga daawan doonto insha Allah adduunka dhan baan halkaan laga daawan doona documentiga wuxuu geli doonaa turjumaadi translation hadii loo baahdo adduunka waa soo urur waa dadkii inaan halkan ka soo saarno baa qoraal ah
oo markaa isagu noqda hadalladayadii oo dhan oo laisu geeyey iyo shucuurtayadii iyo waxa maskaxdayda ku buuxayo isku duuban kadibna annagu aan discussionkayaga sii wadano annagu u kala qaadi doona dad badan baa dhiman waa idin sheegay odayaala oo fadhiya oo weli hadlan dadkaasina inay hadlaan fikirkoodiina la ururiyo la dhegaysto halkaana ay kasii ambaqaado hawsha haddii ilahay waxaan halkan soo ururinay marka oo aniga hadda la yidhi noo akri wixii ay dadka isku soo dabaraday hawshan ka hadlay ujeedadoodiina aad ugu maqlayseen ay u arkeen inay tahay gunaanadka ahaan wixii ay ku wada hadleen oo kasoo baxay halkan baaqa haddaba waxaan dirayaa waxaa weeye beelweynta direed ee degan waddankan Finland waxa aynu ku bilaabeen halkan sida tan insha Allah dagaalada ka socda gobolada shabeellooyinka iyo hiiraan iyo gobolada dhexe iyo meel walba oo ay degto ciidan waxaa mas-uuliyadeeda iska leh oo lagu xukumay inay mas-uuliyadeeda qaado dowladda muqdisho fadhigeedu yahay oo madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud maadaama daliilo loo hayo ah in ay ciidamo ay iyadu dirayskii siisay hubkii siisay saanadii siisay ay duulaanka qaadeen labo waxaan u diraynaa baaq dowladda madaxweyne xasan sheekh inuu joojiyo gacansiinta kuwa doonaya inay dulmi ku qabsadaan deegaan aysan lahayn ayagoo isticmaalaya shaar dowladeed saddex taa beddelkeeda ayaan u diraynaa in si deg deg ah ay dowladdu ugu baaqdo in dadka deegaanku ay dhistaan maamul cusub oo ay ku midaysan yihiin dadka deegaanku dowladduna taageero buuxdaan oo xag dhaqaale siyaasad iyo horumarba leh ay siiso waxaan u sheegaynaa dowladdu inay si deg deg ah u bilowdo barnaamij dhaqan celinta maleeshiyo beeleedka deegaamada ay colaadahaasi ka dhaceen oo iyagu tababaro agab military iyo wixii dhaqaalaha u baahdaan loo dhammaystiro si ay u noqdaan kuwo suga amniga deegaamada ayagu ay kasoo jeedaan rabshooyinkuna ay ka dhaceen waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed intooda nabadda jecel inaysan jirin wax la yidhaahdo dagaal u dhexeeya beesha hawiye iyo beesha direed balse uu yahay dagaal u dhexeeya dadka deegaankaasi degan oo dhibaato jirtay muddo 20 sannadood ka badan ku jiray kaasoo ay dagaalkaasi hurinayaan kuwo qaswadayaal ah oo aan matelin cidna marba shaar cusub xirta oo wata dana shakhsiyadeed iyo mid beelo hoose oo aan meel marayn doonayana inaysan shacabka soomaaliyeed helin dowlad iyo nidaam iyo cadaalad marnaba qodobka lixaad jaaliyadda direed ee waddanka Finland waxay soo dhaweynaysaa taageeraysaana dhammaan dadaal kasta oo lagu nabadaynayo dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee meel kasta oo ay joogaan todobo jaaliyaddu waxay sidoo kale faraysaa inaysan dadka deegaanku ku xadgudbin naftooda iyo maalkoodaba dadka ay isku haybta yihiin kuwa qaswadayaasha ah oo ayagu degan deegaamadaasi lana ilaaliyo xuquuqdooda iyo maalkooda iyo nasabkoodaba oo aysan noqon mid loogu eedeeyo ayaga maadaama ay isku hayb yihiin qaswadayaashaas waxaa kale sidoo kale qowmiyada direed ay cambaareynaysaa sida suldaanku u sheegay hanjabaadaha ay marinayaan oday dhaqameedyo kasoo jeeda beelaha hawiye oo ayagu ku hanjabaya in ay dhibaateynayaan odayaasha aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta beeshan ee ayagu ku sugan magaalada muqdisho taa ayaan si toosa iyagana uga digaynaa dadyoogaasi iyo oday dhaqameedyada ku hanjabaya inay arrinkaasi ka fiirsadaan ugu dambeyn ayaan faraynaa dhammaan beesha caalamka dowladda iyo shacabweynaha muslimiinta ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay u gurmadaan dadka masaakiinta ah ee ku hantidoodii ay ku waayay dadka wax magaratada ahna ay dadka qabadsiiyeen guryahoodii iyo deegaamadii ay ku ilmo korsanayeen sida deegaanka Kabxane ee gobolka Hiiraan iyo Defow shabeellada dhexe degmooyin fara badan oo tuulooyin Jowhar agaarkeeda ah iyo number 50 oo ah gobolka shabeellada hoose waxaan sidoo kale beeshu u diraysaa qoraal siyaasadeed iyo baaqiyo kala duwan dowladaha aan saaxiibada nahay sida dowladda Turkiga kuwa aan dariska nahay ee IGAD Djibouti Uganda Ethiopia Kenya iyo caalamkaba intaan
tababar iyo hub dambe la siin inaan macnaha tababar iyo hub dambe la siin dowladda iyo ciidamada ay qorayso ilaa la sameeyo maamullo goboleedyo waddankoo dhan kuwaasoo samaysta ciidamo u gaara oo kasoo jeeda deegaamadaasi hadhowna loo qaybsado sidii horeba loogu qaybsaday nidaamka 4.5 ugu dambeyn waxa ay jaaliyadda ama beesha direed ee waddanka Finland dhambaal weyn u diraysaa dhammaan xildhibaanada wasiirada mas-uuliyiinta ayagu ku yimid nidaamka 4.5 ee matala beesha jooga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho in ay si dhab ah loola xisaabtami doono haddii aysan wax u qaban oo aysan ka hadlin oo aysan u kicin nabadeynta horumarka iyo raadinta xuquuqda dadweynaha iyaga intaas waxay ahaayeen qodobadii ay ku hadleen dadkii hadlay oo dhan aad maqlayseen markii la soo aruuriyey oogii kale waxaan lahaa wuxuu yidhi waa tahay ma wiil iyo waalidkiiba ayaan kala weecan kara axdigu waa weyn yahay ma labadii wacad dhigto wallaahi isugu maraa isweydaarsada xumaan wadaagay baa tahay aan waaye isweheline wan yahow haygoyn wadnaha oogii kale waxaan lahaa wuxuu yidhi waa tahay wiilnimadaydii horiyo haddoon waa yeel ku dhacay waxtar hadalkiisa daaweylihii baad lahaysato wax yar baa wiririglo waxaa haray waxarihii wanaag baan ku wadacay warkuna waa kooban yahay wadaynimo kaama rabo waddankaana